TV-ga Ariel ayaa booqday guri ku yaala xaafadda Jigjigeer ee magaalada Hargeysa oo ay ka dhacday arrin mucjiso ah. Gurigan ayaa maalintii waxaa gudihiisa ka kacaya dab aan la garanayn sababta keentay, waxaana intii aan guriga joogay indhahaygu ay qabanayeen dabkaasi oo gudaha guriga ka kacaya. haddaba si aan arrintan la yaab kale faahfaahin ugu helo, waxaan waraystay hooyada gurigan. walaal waxay igu dhacday maalintii maxay ahayd iida ayaan guriga ka tagay. haddaan ka tagayna maxay ahayd gurigiyo waxaan arkay waan halkan iska joogo maan gelin. ka bacdi meelaha 6 oo kale ayaan guriga galay. guriga leerkuna wuu afkareysnaa isagoo maxay ahayd uray in urba isaaqday. urti markay isaaqday ayaan maxay ahayd inama halkan wax iga iibsanay la hadlan ku walaal gurigi wax leeru eg baa ka uraya kaala ila eega. way eegeen urti waxba way ka waayeen. in yar ka bacdi markaan joognay salaadii maghrib laga baxay ayuun baan maxay ahayd haddana eegaysnay. waxaan aragnay ka tamaanka dharka yaalo gubanaya. ka bacdi ka tamaankii wixii halkan la isla soo tuuray waa la baktiyay. nimankii leedka noo yimid way eegeen leedkoogii wax mushkilada leedka kama jiray yiraahdeen. haddana leedka sidii baan u afgaray habeenkii saasan ku seexday namadii caano. ka bacdi aroortii ay meelaha 9 oo kale dan dukaanka soo galay. dukaankeena baa ku ibsan macad ciyaalkaygu ila joogay. waan maxay ahayd in yar markaan joomaan in yar ku yiri ordahuna imkana eeg. inantii yaraydan baa aragtay isagoo gurigi ololaya. dharkii aan kala maray oo ololayan baan arkay. dharkii isagoo ololaya markaan aragnay rag baa ila joogay iyo inamaya hablo iyo laba la baktiyay. halkana la soo dhigay. maalintii dambe haddana isagoo gogashii iyo furaashadii ololayan baan arkay. dawladna mucjiso rabbaaniyon baan u arkayaa. maantana 8 jeer ku ah inta maxay ahayd meeshu ololisay guuleys. imkana anoo ciyaalkaygii waxay dukaanka aanu wada joogno ayaan baan furaashka ololaya arkay. furaashka weyn. furaashkii halkan olol buu iga qabsaday. meelaan ka baxa waan waay. daata maxay ahayd ilaaha weyn waaxida inamada askarta ayaa igu soo yaacay soo dhaafiyay ololka marka kana iga guban gaadhay maanta oo ilaahay sadaqa ku bixiyay. marka ummadda Nabi Maxamed waxaan ka codsanayaa masuubada inuu ilaahay ka nabad geliyo. waxyaabaha ugu badan ee guriga markuu gubanay waa maxay? waxa markii uu horeysay dharka odaygan baa gubanayay. laakiin ilaa shalay toole dharkii ubadka iyo wixii aan huwanaynay iyo waxaan goglanaynaa weeyaan. iyo shandadahaas soo raacay marka waa xilliga maad aragtay 9ka xilliyadaas weeyaan. habeenkii guriga ma gubtaa? ma gubanayo kuma naan arag. habeenkii waa la nagu soo dul jeedaa. waana iska seexana anagu wax dhibana ma arkaan ragga nagu soo dul jeeda. xalay odaygayga iyo asxaabtiisa waaga halka ugu bariyay. imika markaan guban doono naga bixi dukaanka alaab igu doono. ka bacdi markuu yar naga sii socday waxaan aragnay urta dukaanka ma igu soo galsaan oo taagan. mise cishaay gubtaanka guriga socday ilaa maalintii iida inta iidi ka dambeysay idil weeyaan. waana maanta 8 jeer ku ah. maanta mana ugu la yaab badnaydo inaan ka iriga guban gaadhay. ololkuna ka fara badnaa. sidoo kale qaar ka mid ah ehelada gurigan ayaa la hadlay telefishinka Ariel TV. walaalayaal dabka aad arkaysaan goobjoog u ahaydeen waa dabkii 9aad. mar wala maxay dabkaasi reerka qabsadana gurmad baanu nahay oo waanu imanaynaa. waana markii labaad shalayna saa anagoo goobjoog ah saad goobjoog ugu tiin ayuu reerka dabkaasi qabsaday. wax alla wax dabka shidaya iyo wax alla wax la yidho qabsanaya toona ma jirto. dabkaasi mushamaca ma qabsanayo. guriga kale ma qabsanayo. alaabta aan buu ka bilaamaya. waana maxay ahayd maalintii 9aad weeyaan. waana arkaysan indhihiina aad ku arkaysan. walaal masiibada meesha maxay ahayd ka taagan. muslimiintu ilaahay hanoo barido hanooga soo duceyso masaajidada iyo muslimiinta iyo culimadiinkuba. ilaahay hanoo soo bariyaan masiibada maxay meesha ka dhacaysa goobjoog u tiinaad arkaysan. saadi ma ka arkaysan idinku indhihiina ku arkaysan. waxaan u maleynayaa waxaan inay jiihiin ya saasoo kala duwa xidhayeen. mar walba waxa loo leeyahay gurigan ciidiba ku jirin saad imika idinku indhihiina oo arkaysan u taagantiin ayuun buu ololaya. tan waxa loo alla waa ka gubtay ya marka waxaan waa jinde waa sixir weeyaan waxan. marka mar haddaan ciidino dad wali kuma dhiman caruurtana imika ka qaaday waxaan rarayaa gurigeygii baan rarayaa. marka baloon eegi doonaa waxaan isagu dambeeyaan ya waana iska dhamaan doontaa insha Allah. inta la wada og yahay waa markii ugu horeysay oo arrin mucjiso ah oo caynkan oo kali ay ka dhacdo guud ahaanba Soomaaliland. Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan, Ariel TV, Hargeysa.